on behalf of the federal government and the people of Somalia, anigoo ku hadlaya magaca dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan hambalyo diiran u dirayaa midowga Yurub iyo muwaadiniintooda munaasabadan muhiimka ah awgeed. Europe Day is not only about celebration of history. Maalinta Yurub ma ahan oo kaliya sooyaa loo dabaaldegayo waa dabaaldeg ku saabsan midnimo, iskaashi, nabad iyo himilo wada jira. It reminds us that nations waxayna xasuusinaysaa in dawladuhu ka gudbi karaan kala qaybsanaanta isla markaana dhisi karaan hay'ado waara oo ku dhisan wada hadal, is-ixtiraam iyo danguud. For Somalia, this occasion carries special meaning. munaasabadani waxa ay Soomaaliya u leedahay muhiimad gaar ah. Dawladda Yurub wuxuu Soomaaliya garab istaagay xilliyadii ugu adkaa ee taariikhdeena casriga ah, laga soo bilaabo gargaarka bini'aadanimo ilaa iyo dib u dhiska dawladnimada, taageerada nabadda ilaa horumarinta hay'adaha dawladda. Midowga Yurub wuxuu ahaa mid ka mid ah saaxiibada Soomaaliya ugu kalsoonida iyo joogtaynta badan. We deeply value this enduring partnership. waxaan si qoto dheer u qadarinaynaa iskaashiga waara. Taageerada midowga Yurub iyo dawladaha xubnaha ka ah waxay si weyn uga qayb qaateen safarka dib u kabashada iyo dib u dhiska Soomaaliya. Si wada jira ayaan uga shaqaynay xoojinta hay'adaha dawladnimada, ballaarinta adeegyada bulshada, horumarinta iskaashiga amniga, taageeridda dib u habaynta dhaqaalaha iyo hirgelinta mudnaanta horumarineed oo si toos ah u taabanaysa nolosha shacabka Soomaaliyeed. The partnership between Somalia and the European Union is not transactional. iskaashiga Soomaaliya iyo midowga Yurub ma ahan mid ku kooban danaysi wax kala bedelasho ah. waa iskaashi istiraatiiji ah. waxa uu ku dhisan yahay kalsooni, dano wada jir ah iyo aaminsanaan dhaqanka nabadda. Excellencies, Somalia today is changing. mudanayaal iyo marwey, Soomaaliya maanta way isbedelaysaa. inkastoo ay jiraan caqabado weli in hor yaalla, haddana dalka iyagu wuxuu samaynayaa horumar joogto ah. waxaan dib u dhisaynaa hay'adihii dawladda, waxaan horumarinaynaa dib u habaynta dhaqaalaha, waxaan xoojinaynaa ciidamadeenna amniga, waxaan hagaajinaynaa maaraynta maaliyadda guud, waxaan ballaarinaynaa ka qaybgalka dimuqraadiyadda iyo sidoo kale waxaan sii xoojinaynaa dadaalada dib u heshiisiinta ee dalka ka socda. Most importantly, we are working tan ugu muhiimsan waxaan ka shaqaynaynaa sidii awoodda loogu soo celin lahaa shacabka Soomaaliyeed. muddo ka yar hal sano, Soomaaliya waxa ay qorsheynaysaa inay u gudubto doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan xanaan dimuqraadiyadeed. shacabkeennu waxa ay mudan yihiin inay si toos ah u doortaan wakiiladooda. dimuqraadiyaddu waa inay shacabka u adeegtaa ee aysan ku koobnaan koox yar oo gaar ah. Not to a select few. In this regard, arrintan awgeed waxaan saaxiibadeenna reer Yurub u aragnaa tusaale ku dayasho mudan oo dhanka bisaylka dimuqraadiyadda iyo adkaynta hay'adaha dawladeed ah. waayo aragnimada dimuqraadiyadda ee reer Yurub waxay muujinaysaa in ka qaybgalka siyaasadeed ee loo dhan yahay uu xoojinayo kalsoonida, sharciyada iyo midnimada qaranka. kuwani waa casharo ay Soomaaliya si weyn u qadarinayso iyadoo sii wada safarkeeda dimuqraadiyadda. Our government is fully committed to dialogue, consultation and consensus building. dawladdeenu waxa ay si buuxda uga go'an wada hadal, wada tashi iyo dhisidda safgaradka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu casuumaad u fidiyey mucaaradka iyo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda si ay uga qayb qaataan wada tashiyada qaran. waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyada inay yimaadaan miiska si wax ku ool ahna uga qayb qaataan, aragtidoodana uga dhiibtaan si mas'uuliyad leh
Somalia belongs to all Somalis. At this important stage of nation building, marxaladan muhiimka ah ee dib-u-dhiska qaranka waxaa dalku u baahan yahay waa ka qaybgal wax dhisaya ee ma ahan jahwareer siyaasadeed in la gaaro xalal waara ma ahan khilaaf aan dhammaanayn in la helo midayn himilo qaran leh ma ahan kala qaybsanaan shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan hoggaan ka fog dano gaar ah islamarkaana mudnaanta siiya mustaqbalka qaranka mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxay sidoo kale ka mahadcelinaysaa taageerada joogtada ah ee midowga Yurub dhinaca bini'aadanimada gaar ahaan xilliyada abaaraha barakaca iyo cunno yaraanta floods, displacement and food insecurity. Your solidarity has helped save lives and preserve hope for millions weyn ka geystay badbaadinta nolosha malaayiin Soomaali ah oo at the same time nugul our ambition is very ilaalinta clear. rajadooda We want to isla markaa gradually move himiladeennu from dependency waa mid towards cad resilience waxaan doonaynaa and productivity. inaan ka gudubno ku tiirsanaanta We want una jihaysano Somalia isku filnaansho where iyo wax soo saar opportunity replaces waxaan rabnaa vulnerability, Soomaaliya oo ay where fursaduhu young people bedelaan can nuglaanta their in future at dhallinyaradu home, mustaqbalkooda ku dhistaan where trade, gudaha dalkooda investment, isla and markaana innovation ganacsiga become stronger maalgashiga pillars iyo of our hal-abuurku economy. noqdaan tiirka ugu muhiimsan ee dhaqaalaheenna This is why our partnership with the sababtaas European awgeed Union is so ayuu important. iskaashiga aan la leenahay midowga Yurub muhiim Together, u yahay si we can wadajir ah expand ayaan u cooperation ballaarin beyond karnaa humanitarian iskaashiga assistance kaga baxsan into karnaa areas gargaarka such bini'aadanimo as una gudbi infrastructure, karnaa dhinacyo ay ka mid education, yihiin kaabayaasha energy, dhaqaalaha climate waxbarashada resilience, tamarta digital oo adkaysiga transformation, isbeddelka trade, cimilada and iyo private horumarinta sector ganacsiyada development. gaarka loo leeyahay Ladies and gentlemen, Europe Day is ultimately mudanayaal a iyo reminder marwooyin maalinta that Yurub peace and ugu progress are dambayn built waxayna through xasuusinaysaa in patience, nabadda iyo horumarku ku partnership, dhismaan and samir political courage. iskaashi iyo geesinimo siyaasadeed itself Yurub stands lafteedu waxay as tusaale proof u tahay that sida countries dalalku uga can gudbi karaan overcome taariikh painful xanuun badan histories una dhisi and karaan build mustaqbal wanaagsan stronger future iyaga oo through adeegsanaya cooperation iskaashi and shared vision. iyo himilo midaysan Somalia draws inspiration from that experience. Soomaaliya waxa ay dhiirigelin ka qaadaysaa waayo-aragnimadaas waxaan sii wadi doonaa rajada wanaagsan ee mustaqbalkeenna Democracy waxaan and ka go'aanahay and we nabadda remain grateful dimuqraadiyadda for partners such as iyo the dowladnimo European loo Union dhan yahay who have continued to waxaan sidoo kale walk uga mahad alongside celinaynaa saaxiibada Somalia sida midowga Yurub during every oo stage mar walba garab taagan of Soomaaliya this journey. marxalad kasta oo safarkan ka To mid ah Ambassador Francisco de Moura waxaan uga mahad celinaynaa danjire and to all Francisco de representatives Moura of the European iyo Union dhammaanba and its wakiilada member midowga states. Yurub iyo dowladaha I thank you for xubnaha your ka partnership. saaxiibtinimadooda garab I thank you istaagooda for your iyo solidarity taageeradooda and joogtada your ah commitment ee to Soomaaliya As we inta aynu celebrate caawa u Europe Day dabaaldegayno this maalinta evening, Yurub aynu let dib us u renew cusboonaysiino our collective go'aankeenna determination wadajirka ah ee ku aadan to strengthen xoojinta iskaashiga cooperation, qotada dheer deepen mutual isfahamka understanding iyo and maalgashiga mustaqbal lagu in a asteeyey future fursado defined by iyo not by horumar crisis, wadajir ah halkii uu but noqon lahaa by opportunity mid ku salaysan and shared dhibaatooyin iyo qalalaase Happy Europe Day and thank you very much.